munaasabad si heer sare iyo agaasimeen wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya cisbitaalka guud ee gobolka Baay iyo ururka mulusooyinka Soomaaliyeed oo iyo ku dhiidi gudo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay munaasabadan oo iyo qaban qaabiyeen madaxdan ka sareyta wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo dhaqaatiirta iyo mulusooyinka ku howlgala guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya munaasabadan oo iyo ku hadalay madaxdan ka sareyta mulusooyinka Soomaaliyeed dhaqaatiirta iyo mulusooyinka ku howlgala gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya magaalada Baydhabo munaasabadan oo iyo ku hadalay madaxdan ka sareyta mulusooyinka Soomaaliyeed Dr. Habiba Hussein Cismaan oo iyo ku hadalay xaaladda mulusooyinka Soomaaliyeed gaar ahaan koonfur galbeed Soomaaliya mulusooyinka waa difaacayaasha xuquuqda dumarka ayaa maanta waxa ku dhageeyay uu yahay sanadkan 2019 sanadkii hore wuxuu ahaa keer ayaan sameeynay aan sheegay maanta waxaan joognaa difaacayaal aan nahay xuquuqda haweenkan difaacayna marka ugu horeysa umuliso haddaan dhaho maxaan ka soo qaadaa umuliso waa qof tababaran loo tababaray inay caawiso guud ahaan bulshada oo dhan maadaama aan nahay lafdhabartii bulshada haween haddaan anagu aan ka caawinayno dhinaca caafimaadka dhaqaalaha iyo waxyaabo badan oo aan hooyooyinka iyo ilmahooda aan ku caawinayno asaaso kale munaasabadii mayba ku hadalay madaxa macadka tababarada mulusooyinka Baydhabo Dr. Dahabo Aadan Maxamed oo yeeshaagtay ardada la ka tababaro macadku inay lagu shalsheene deegaanada Baay iyo Boqol iyo Gadaa warbada ma iska dayay inay oo ardayda ku shalkooyaan diinsoor qansax dheere Bardaale Baydhabo Burhakaba Boqol degmooyin shalduum iyo Gadaba oo telefoonka maraan yaani hadii aad Gada oo kala ma Boqol وين ونبرون أرمويدا مساعدتك أو وزارة شانتي أو قابل صناعي قيد سجولك معناها يعني فإذا إيالات هنو انترست ما يسيو سومالي هذا انترست سياسة إمرجنسي يبدأنا باسك أنت بدن الحمد لله بعد تعب وشدة ميك يقول السنة إنه هذا هلنا بايدابو بورحكبا بردالة حضر واجد ميرو حدو اللي جروبنا انت بدن او ميدويفري امولسيون جروبنا ما يكون مدها قنصح دheer iyo diinsor iyana ma rajayna mustaqbalka markii uu group qaadano oo hal wadaagno wasaaradda caafimaadka in ka mas'uul ahaan lagu sheen arday hatta hadii iyo Baydhabo ka qalin jibiyeen si iyo markaas wadasho dhibaatada taagan daboolan anka dambeyntii mayba munaasabadaas ay hayray wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cismaan Cabdi Muuse dibka hadda ay sameynayaan loo yareyn lahaa wasaaradda arintaas maxay ahayd go'aanka gaaraysa oo Ilaahay karaale noqdo waxyaabaha xiriiriyaha uu ka dhawaajiyay waxa ka mid ahaa referral systemka oo uu problemka sheegay anaga waxaan leenahay ambalaasyo istaalka kaligiisa saddex ambalaasyo standing by ah jirto wasaaradda ambalaasyo standing by ah jiraan oo on shaqeeyo marka hadii cilad yar oo communicationka dhinaciisa ay dhacday mararka qaar cilad yar way iman kartaa laakiin referral systemka ee wasaaradda si wanaagsan ugu shaqeeya wixii qalad jiran waxaan diyaar u nahay inaan saxno si mar dambe ay noogu soo laabanin wasaaradda waxyaabaha ugu muhiimsan ama oo ahmiyadda koowaad u leh waxa waaye health service delivery system in adeeg caafimaad qof walba la gaarsiiyo oo qof galbeed joogo taasna ma ahan wasaaradda in anaga kaliya aan sameyn karno waa in ay dadka anaga nala shaqeynay si wanaagsan ugu qayb qaataan marka ayadana waxaan ka sameynaynaa insha Allah wacyigelin fara badan anagoo shaqaalaheena iyo dadka wax bartay ay haysan ka faa'iideysanayno marka waqtiga uu kooban yahay sidaas darteed waxaan si official u soo xirayaa xafladii hambaliyo maalinta mulusooyinka adduunka gaar ahaan Soomaaliya iyo koonfur galbeed oo hambaliyay assalamu alaykum Hinda Ali Cismaan raadiyaha telefishinka dowlad goboleedka koonfur galbeed magaalada Baydhabo